وآد إياد بأكروليد ووحي كجوابيسا سفر كي أنكو مغنى حمر يوحي كهير قلي وأنكو قور عني إني كسوب بحان بيل إيه شنبري ما إني كم مغنى وحان كم مدها لبدا أقل oo dawladda federaalka aqalka sare waxaan u tagay halkaas inaan ka qayb galo dhismaha dawlad qaran Soomaaliyeed oo ugu horeysay maalinta 22 ah in lagu doortay hogaankii aqalka sare oo mathalaya nidaamka federaalka oo Soomaaliya ay qaadatay sidii loo dhameystiri lahaa loo hirgelin lahaa markii ugu horeysay taariikhda Soomaalida isagoo 2012 u baaqsaday haddana u taagan inuu nidaamka federaalka hirgeliyo dibashinta Soomaaliya hogaamiyo dib u noqoshada dastuurkana qayb kala mid noqdo isagay aqalka shacabka golaha shacabka oo iyagu doortay hogaankoodii intaan aan wax margaarin inta ka bacdi waxa loo guddoomay qabanqaabadii in la doorto ra'iiskii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maanta baarlamaanka tobnaad oo Soomaaliya wuxuu diyaar garoobay doorashadaas waad ka warhaysaan anigu murashaxiintan ka mid ahaa laakiin markaan arkay sida ay wax u dhacayaan waxaan go'aansaday anigu inaan ka kaabsado bisha 7 baan ku dhawaaqay waana sababeeyay iyadoo aan u jeeday meesha waxa ka socda lacag badan oo la bixinayo duulaan badan oo gudaha iyo dibadda ka yimi oo nimankii maamul goboleedyada madasha ka mid ahaa ay duulaan soo qaadeen xubnihii deegaamadooda ka soo jeeday ay u soo biyeysteen buraashad inay meesha iyagu ay doonaan ay geeyaan ama xoogag shisheeye oo Soomaaliya gacanta kula jiray ay u tilmaamaan oo Puntland ay ka mid ahayd waxaa sii dheer intaa waan sheegay bisha 7 maamulka Puntland isaga iyo baarlamaankiisii oo wada socdo madaxweyne hogaaminayo murashaxiintii badneed anigu aan ka mid ahaa ayay mid kala safteen oo ceeb sameeyeen arintaasna ma ahayn wax iyagana ku haboon dadka reer Puntland oo halkaas iska sharaxay shacabkiisana ay ku matlaayeen ma ahayn hase yeeshee laqdaba ninkii sameeyay isaga ila u taala nimankii madasha ka mid ahaa ama gobolada ka yimaadeen ama xarunta ha joogeen dhagaxbaa la gidoomay canqowgeena ka jabeen waana ceeboobeen laakiin natiijadii waxay noqotay in xubnihii aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka labaduba ay go'aan ku gaaraan inay u joojin faragelin shisheeye iyo maalgelin dibad laga keenayo mid gudahaaba ee qofkii ilaahayna u tilmaamay oo ku ilhaameeyay iyaguna ay ka dhabeeyeen inay doortaan oo ay bisha 8 February ay doorteen mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay madaxweyne u doorteen iyadoo ayaan filayn qoladii madasha inay arintaas u imaanayso waxa weeye cid walba oo soo joogsatay meelaha laga dabaaldegay kamid ahayd Marmaniya Garoowe wadanka gudihiisa dibadiisa waa laga dabaaldegay xamarna waa la joojin kari waayay dadka waxaan sheegayaa dadka Soomaaliyeed waxay cadeeyeen musuqmaasuq iyo faragelin shisheeye inay midna u joojineen waxay rabaan ay keensan karaan iyagu ayay cadeeyeen taasana najixooda ku jiraayeen liibaantoodi waxaan soo jeedinayaa intii hore inuu ku filan ceeb nimankii madasha gobolada ka yimi ee wixii la socday amaan hayni ka helo ninka la doortay oo shacbiyada ku helay ha fakero ra'iisul wasaarihiisa ha doorto waliisa xukuumadda ha dhisto yaan la faragelin anigu laftigay waxaan uga soo kacay intaas dad culays igu haya dartood inayan ii isticmaalin inaan iraado hebel iska ka dhigi hebel ka dhigi hebel ka dhiginaanan aan halka joogo intay doorashadu dhacayso la xulanaayo ra'iisul wasaaraha xukuumadana la dhisaayo waxay u fiican tahay dadka dalkiisa iyo mustaqbalkiisa waxaa inta raacinayaa
haddii ay saasu soo baxday oo madaxweyne la doorto jamhuuriyadda dhalatay dadka Soomaaliyeed shacabka inay la wada shaqeeyaan waxa aynu haysanaay ma badna wadankeena waa burburay abaaraha ka dhacay dhaqaalihiisu waa yar yahay dawladda dhexe dekada xamar kuma filaan karto waxa ka soo baxa laas wax ku jira in lagu diriro oo aniga iga dhig hebel ka dhig oo dadka waqtiga ku lumiyo lama rabo waa in la imaansadaa waxa uu la yimaado nimanka maamul goboleedyada joogay maaha Puntland kaliya kuwa meelaha kala jooga iyaguna ha ku filaadeen degaamadooda ha nabadeeyeen dadkooda abaartu haysa ha u gargaareen maamuladooda silicsan ha u shaqeeyeen adeegooda ha gaarsiiyeen dhaartii ay u mareen waxaan loo yaqaan afka qalaad social contractiga oo dastuurka ay ku dhaarteen inay ku dhaqayaan ha ku dhaqeen shaqadii loo idmaday ha sameeyeen iyo isku mashquulin ninkaas wuxuu samayn doono anigu haddaan halkan imina hadalla waan maqmaqlaayay waxba kaga noqon maayo waxaan jirin ma ka soo qaadaya ninayu aniga igu mashquulin anigu waligay inta nolosheeda qofna xumaan oo lama bareerin wax wanaagsan inaan ka shaqeeyo nafteyda faro mooye wax xun waligay kama shaqeyn waxaan ka shaqeyn jiray al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar haddii laygu mashquulo haddii anna waa dhici kartaa inaan idku mashquulo laakiin yaana laygu mashquulin dowlad dhexe iyo mid gobol midaba wax wanaag weli ogama shaqeyn haddana ogama shaqeyn doono wax xumaana weli wanaag baan ka shaqeynay wanaag baan u taagnaa wixii xumaan ka shaqeeya iyaga xumaantoodu u damayn doontaa wajazaa'u sayyi'atin mithlaha iyaga u damayn doontaa dadka maanta halkaan soo baxay wanaagooda iyo kalgacaylkooda ilaahay ha u qabto ilaahayna raxmadda ha u furo ilaahay abaarta ha ka saaro ilaahay qulubtooda dhinac u soo wada jeediyo annagu meeshii hadda aan ka nimid dadkii aan ku soo aragnay aad bay noo soo dhoweeyeen mucaarad iyo maayidba waa lahay intaan doorashadu dhicin intuu waana soo dhoweeyeen haddii aad moodaysaan dad inay necab halkaa inay joogaan annagu dad wanaagsan baan soo arag dhibaatadii oo dhan soo daarshatay wanaagga hadda raba cid xumi ayaan jirin cid qabiil cid ku eegaysa ayaan jirin idinkana waynu ku ogaa saasad ahaydeen waxaa loo baahan yahay oo keliya xukuumaddaas dhalanaysa iyo golayaasha loo doortay aqalka sare iyo golaha shacabka iyo maamulada dadka jooga inay wanaagga ka shaqeeyaan oo dadka dhibaatada ay ka yareeyaan magaalooyinka ay kala xireenna furaan ganacsiga iyo dadkuna isu socdo sida dadka reer miyiga ahayba ay isu soo dhoweynayaan markii abaartu ku dhacday oo hayaameen bari salkiis degmada bayla iyo xaafuun iyo isku shuban qaybteeda bari shacabku saas isu yahay dowladaha xumaanta ku jidhaya siyaasiyiinta dadka kuma jirto marka ninna xumaan ha u haynina waxaan jeclay halkan inaan uga celiyo mahad weyn dadka muqdisho ku nool oo aan soo dhoweeyey oo namarti qaaday oo kalgacayl noo muujiyey oo laabtooda noo furay idinkuna inaa saasoo kale yeeshaan kuwa badanoo iyaga ahayna waa imaan doonaan idinkuna waa aadi doontaan in dadkii Soomaaliyeed ilaahay oo qalbigooda meel wada jeediyo aniguna intaan nool ka qayb qaadanaya haddii alla idmo dib heshiisiintooda arintaas maxaad ka leedahay waxba kama jiraan waa cid ka baqaysa waxaas inaan wadno annagu weliga xumaan kama shaqeyn ciddii shaqadeed ka bixi weyda idinkaa u jooga idinkaa la xisaabtamaya golihii iyo baarlamaankii doortay annagu shaqo kuma leh annagu maanan dooran allah u naxariistay marxuumkii maxamuud muuse xirsi hadda madaxweynihii iga horreeyey aniga oo Puntland waan jeclaa meel dhow in lagu aaso laakiin meeshii loo garto ilaahay meydkiisa in la dhigo ay tibaa la geeyey xaaskiisii iyo wiilkiisa curad waxaan u taxsiiyey bisha 8 markuu dhintay haddana mar labaad baan u taxsiinaya meeday uga taxsiinaya ilaahay u naxariisto qoyskiisina ilaahay ka samirsiiyo xaaskiisii iyo carruurtiisii iyo eheladiisii iyo reer Puntland oo dhan waxaan soo jeedinaya xukuumadda hadda joogta shacabka reer Puntland ay raalli ka noqdaan aeroboortka Boosaaso isagaa bilaabay dhismihiis anigu isagaan ka soo gaaray terminaalka isagaa taagay anigu dhammaystirkii baan lahaa ranwaygana ciidda isagaa dhigay
anugu baaristiisii iyo waxaan lahaa iyo u raadin maalgelintii dhammaystirkiisina xukuumaddana soo gaadhay iyadoo tenderkii la bixiyo haddii cid lagu maamuusayo isagaa xaq u leh in lagu maamuuso oo loo bixiyo maxamuud muuse xirsi aeroport in loo bixiyo ayaan soo jeedinayaa xukuumadda iyo shacabka reer puntland intuba inay la qaataan saasaan ugu soo jeedinayaa waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu su-aalaha waa ay dhibaan anugu waxaa aad loo hadalhayey doorashadii markii ay soo dhammaatay magaalada muqdisho oo farmaajo la doortay siyaasiyiin adigu aad ugu weyn tahay in puntland aad kusoo wajahan tihiin oo halkan aad ka bilaabaysaan loolan kale oo kii muqdisho oo lasoo raray oo puntland arrintaas maxaad ka leedahay waxba kama jiraan waa cid ka baqaysa waxaas inaan wadno annagu weliga xumaan kama shaqey ciddii shaqadeed ka bixi weyda idinkaa u jooga idinkaa laga xisaabtamaya golihii iyo baarlamaankii doortay annagu shaqo kuma leh annagu ma aanan dooran